بسم الله الرحمن الرحيم ودهر على السوق ودبيشة كده ومرحلة عياسيسو وحنوصو فريستي وانك حليا وحاوي كبدا وسيرده اللي يراهدو دقه ياسين وطمع maxaad ka taqaanaan maxaase looga baahan yahay qodobkaas ayaa qaada dhigaya laakiin waxaan doonayaa in aanu mahad celiyo oo ilaahdo waad mahadsantihiin gudoomiyaha koowaad ee baarlamaanka ama golaha shacabka ninkleedo maxamed mursal iyo gudoomiyaha ku-xigeenka cabdiweli muudey isku siyaasad maahin laakiin haddaad diinta ilaahay usoo baxdaan inaad difaacdaan dhaqanka suban usoo baxdaan waxaad mudan tihiin inaad idin mahad celiyo waxaan kala rabaa inaan u mahad celiyo culummada al-ictisaam ood ogtihiin fikradahaas u kala duwannahay sheekh bashiir axmed salaad iyo sheekh baaruud gurxan iyo sheekh cali wajiis waxaa leedahay kale waa mahadsantiisa usoo baxdeen ood ugu soo baxdeen inaad waxaan qaldan ee gabadha wasiiradda ah ay waddo ee sharciga qoomaluudnimada ah ee ay baarlamaanka hor keentay saad uga dhiidhiseen waa ku mahadsantihiin culummada ahlu sunna wal jamaaca waxaan leeyahay war culummadii baa ahaydeene idin aaway leedinma haye maxaa dhacay dadkaa la fadaraynayo dalkaa loo samaynayo sharciga qoomaluudiya futiska gelinta maxaad uga soo hadli lahaa sow diintan mas-uuliyadda kama saara ونعب قرصون كنا حينجيجا نعصي دغمين موديا كنا حي كنا حواري والنور سيا نبناغو هبسدي والنبركو يا نولشي بلشدا قم نصير حنبي النقدين هرمود كنا حي كنا حواري waa idin soo deynaya muuqaalada culummada iyo guddoonka baarlamaanka laakiin waxaan ka hormarayaa gabadh la yiraahdo deeqa yaasiin wasiiradda haweenka iyo xaquuqul insaanka gabadhaani waxaa iska dhalay laba waalid oo wanaagsan baa iska dhalay aabaheed yaasiin nin wanaagsan buu ahaa beesha dirba u dhashay waxay isku reer yihiin maxad cawad hooyadeedna xaliimo cabdicaruush baa leedahay gabar halyeeyada bay ahayd oo wanaagsan bay ahayd gabar halyeeyada oo wanaagsan oo beesha habarigii dhalatay oo ayra oo habarijiye wey isla cabdicaruush walaasheed baa dhashay qoyskan waxay ka kooban yihiin 3 gabdhood iyo wiil wey gabadha mar yaasiin way guursatay oo ninkeedii Westgate baa lagu diray allah u naxariisto gabadha la yiraahdo deeqa yaasiin ee mataqaanaa wasiiradda hadda ah nimba adigu sagaashamiyada meelaha nimba adigu ka heestay leeda Awestrifti oo gabadhaana ayra Awestrifti reekanada way yaqaanaan ayaa gabadhan dhoofsaday markii meeshu uu geeyay maalmo kadib way ka tagtay way ka baxsatay kadibna gabadha ma guursan dadka yaqaan deeqa waxay leeyihiin waa naagaha isguursada dadka ah way leedahay dadka waxaas u oleeya ee waxa jecel oo nin maysa guursan bay leeyihiin dadka yaqaan deeqa gabadha la dhalatay hibil leeyahay yaasiin idin maysa guursan oo hay'adda iida ka shaqeysa hay'adda iida ee hooyadeed ay mataqaanaa aasaastay ay ka shaqeysaa hiba Nairobi degan yihiin anigu gurigooda mar baan tagay ay baa u joogay ay gurigooda mar baan tagay ay baa u joogay gabadha abtiyaasheeda saaxiibaana ana abtigeed baan baayba deeqa yaasiin aniga abtigeed ayaan marka loo fiiriyay gabadha sheekh xaliimo cabdicaruush oo gabar ah reerkan ku weyn habargeedku aad ugu weyn gabadha waxa leeyahay dadka yaqaanaa gabadha ma aaminsana diinta islaamka shaqo kuma laha ma aaminsana halkaas qorbay saa kortay mana aaminsana waxa laga sheekeynay islaam iyo ahadiis nabi iyo ma aaminsana laakiin waa nasiib darro weyn oo dhacday nasiib darro weyn oo dhacdo weey way sheegaya dadka Soomaaliyeed waa nasiib darro weyn oo dhacdo maanta inagoo dad muslima ah in qof wasiirad sheeganaysa oo wasiirad xaqul insaan iyo haween sheeganaysa oo qaran sheeganaysa ay noqoto qof noocaasa ay habala leeyahay bila nikaax ba hebel futuh ka geli karaa iyo haday ka shaxsan la yeeli karaa iyo waxa in maanta baarlamaanka la geeyo waana ku mahadsan yihiin guddoonka baarlamaanka sida ay diinta islaamka ay u difaaceen
qoradu haddaa Soomaali tahay oo Muslim tahay oo shahaadato waxaan ku weydiinayaa sidee diin Islaam ku jeclayn nabiga Maxamed aad u jeclayn haddii gabar iyo dhowcil wax laga sheego maanta soo dhawaa soo gasha ama qabiilkaaga baraha bulshada seed u aamusan tahay haddaad sheeg tahay ama qof caadi ah Soomaali waxa laga hadlayaa waa aayihii ubadkaaga maxaa uga tagaynaa ubadka Soomaaliyeed maxaa looga tagayaa haddii qowmuluudnimo looga sheekaynayo maanta baarlamaankii oo inta qof soo dhiiratay ay keeni karto maxaa ku yaala jacaylka nabiga iyo diintaada ku dhaara u dhimo waa tan ugu wanaagsan waa meesha ugu wanaagsan waa meeshii weyneed baa loo socdaahe meeshii weyneed tilmaamada joogaya ay sanadee meeshii weyneed baa loo socdaa ku dhimo ninka la dhihi jiray Qays ee Layla jeclaa ayaa waxaa la yidhi maalin baa waxaa la arkay isagoo derbiga shuminaayo markaasaa la yidhi Qaysow derbiga maxaa dhacay oo maanta loo shuminaayo si ku yidhi derbiga waxaa ka dambeeyo wili oo dhexdiisa ku jira gurigan waxaa ku dhex jira wili qofkii aan jeclaa ee Layla ku jirtay marka derbiga saas u shuminaya maalina waxaa la yidhi ay baa la arkay ay ka soo baxay guriga Layla isagoo shuminaya markaasaa la yidhi maxaad u shuminaysaa aygan markaasuu ayga shumiska kuma waday meeshu ka soo baxay guriga aan jeclahay ayuu ka soo baxay marka ka warrama inagoo dad muslim ah jacaylka nabigeena Maxamed nabada xadursi ahaatee iyo jacaylka diinta islaamka iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee maanta aan waxba nagu jaajgareeyeen iska noolaada ha iyaba in saadi dukada nabi ku salliya bas sadaqada la baxa sooma sakada iska dhiiba noo raaxay haddii maanta enerjigaas uu siiyo xoogga inuu siiyo ee qabiilnimada isku difaacnay ee aan ku shaqaysanay ee ilmaha aan ku korsanno haddii maanta ka dhihin ka war kelmad qomuluudnimo gaalka sheekh waa gaal adigana sheekh muslimaata muddo yaa sheegay sheekh aniga hadda holna ku noola aniga gaal ima dhihi karo igala ma hadli karo ilmahayga qomuluudnimo kala ma hadli karo mana igu qasbi karo hadduu qomuluudnimo raasay u taallaa gabarna waa arkay baarlamaanka hor tagtay oo dhahays dadka ma taqaanaa gaaloobay xaq bay u leeyihiin Soomaalinimadoodii in qaataan may sheekh Soomaaliya dastuurkeeda waxaa ku qoran 100% Soomaali waa muslim annaga hada soo gil hawsha waxaan rabaa inaan qiso yar soo qaato intaan fiidiyoo soo gudbin culimada iyo ma taqaanaa ka hadlay iyo baarlamaankii wixii intusin si wax u dhaceen waxaan ka faa'iidayaa gabadhaydii abtigu ahaa deeqa waxaan leeyahay Ilaahay u toobadkeen haddii waxa lagu sheegayo ee lagu eedeynay ay run yihiin Ilaahay uga soo laabo farxad iyo wanaag iyo qurux waxay ku jirtaa shadiin islaamka adiga iyo mahad cawad oo diiday sidii uu hadlay muuday u hadleen iyo meesha la fadhiyay muuday iyo mursal si u hadleen mahad cawad diido ah ninka hadda la hadlay muuday iyo mursal la hadlayaan ee qasbaya in sharciga la baas gareeyo ee sharciga gabadha maxaa loogu baas gareeyay laayahana waa idin la hadlaya wax diin islaamka fiican ma jirto loo mulku loo alxamdu huwa ala kulli shay qadir halka loo laabanayo waa halka aad koor saddexda muslimiina oo caraba oo walaala ayaa dagaalkii jihaadka galay kadibna reer Room nimay qoladii jiray reer Room reer Room baa ku qabtay dagaalkii reer Room waa ogtiyo diinta nasraaniyada ayay aaminsanaayeen diintaas ay haysteen ay aaminsanaayeen dabeetana markii la qabtay boqolkii reer Room baa loo geeyay wuxuu ku dhahay soo dhawaada cidina dili mayso haye wuxuu yiri saddexdiinaan walaala ma tiin ha walaalana waa isku xignaa wuxuu ku yiri madax baan ka dhigayaa oo dawladayda ayaan madax wasiiro iyo xilka rabtaan ka siinayaa kow gabdhahayga waa ku darayaa labo maalkaana aan haystana waxa taan ka qaadanaysaa saddex diinta nasraaniyada soo galo qaato diinta islaamka isaga yimaado nakata waa diideen ma diideen anagoo dad islaam aan nahay diinta islaamka aan haysanaa Allah subhanahu wa ta'ala ka baqaynaa isaga boqora lahu mulku wa lahu alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir sheekh waxa kala waday diinta fataalnimada ay been abuurkan waxa watana qaadamayna dhehen waaba nimankii uu soo wiri saddex digsi
الديارية سيدنا كشبه سيدنا لو شو دب كلا شده كيو ينالي كاله بقول كي حاجة فردية متكبر واحد سنكو تاجا بقول وحوري دين رسالة مقالة الساعة ما يكرده شاب بيسوي له سأكر كريو سيدنا على الحديقة وقلت كيكو حاجة كاله شيخ كاله دين تنستانية مقالة الساعة ما إسلام أنا مسلم قالسة كرده والورد وقلت كي راي لو يري او يراي المه سدحدن كاله لو سوستاي waxa la yiriyaa sheekh diinta nasreed ma qaadanaysa islaamka soo baxaysa ma yowil boqorkii kulida nin maal qabeen oo boqorkii ilmaadar ahayn soo istaagay boqor jooji wuxuu maxaa dhacay wuxuu yiri kan waa yar yahay buu yiri waa nin yar أنا هاي قرشان هيا بويري كان وحويري أنا في الدينية أنا سوق اللي دينت الإسلامية أنا أكو هاي وحبها جوبني وسكوني يروي إسكده بقول كي ما وحويري بقول كي خاله وحويري بماذا سيدا بعد وصاري كتاني كان نيجا ساعة عند عندك واريس نكور جوبي الدبكة ساعة شراي عندها وقول له هديدن إنه الإسلام كبحه بماذا هذا وسيء وصارك قال وحويري نكي هيغاها انت تجاك قال وحويري قد علمت وحن اوغهي انغو ان العرب اصل شيء الى النساء انا وحن اوغهي وحويري يا عربي يكون دودو ودمر كويري نانك عربيت وانا جعليهنو وحي يكون نوبيان ودمر كويري marka kan wuxuu ana qorsho u haya ii sheeg buu yiraqo qorsho u hayso wuxuu ma ogtahay boqorow aniga gabdhaha gabadha ugu quruxda badan ma ogtahay yuraan dhal oo aabaheed ana ha ninka uu maal qabeeysa reer rumna aan bogta ha bas ninka wiil anigu waan wadayaa guriga quruxda ma geynaya gabadhana waa uu waxayna shaqaale u sameeyaa cunto u sameeyaa de hadda waa nin carbeede markuu cunto fiican la siiyo oo gabadha basaat tiraahdo ninkan asaga gabadhi jeclaada soo gal baydahay dinta hees soo gal wasaanidii soo gal marka ka waska galaya wax dhib male wallahi wuxuu waa fikrad fiican guriga la geeyay guri markii gabadhi meesha lagu soo xiray shaqaale loo sameeyay wuxuu ninku wiilkii orta gabadhu si kasta ay soo qaawiso sida ka siiso haran marto waa shahwaad la moogta ninkan habeenkii oo salaad taagan yahay ilaahay bariya waa maruu quraan akhrisanayo waa maruu salaad taagan yahay ilaahay caabudayo maalinta waa maruu dukanayo iyo maruu jiif afartan cisho boqolka loo qabto waa yimid gabadha wuxuu ku yiri afartankii cisho hadda waa maalmo nooga haray ninkii maxaa ka qabsamo waxay tiri abo see uu fikirtay ninkan inuu inta ku diinta nasreed ku qaadanayo wiilkan see uu fikirtay fiir ilaahay wax bashax ka wato maxaa dhacay waxay ila tahay way tiri ninkan waa maruu salaad taagan yahay maruu ilaahay caabudayo ilaahay tuugayo iyo maruu hurdayo way tiri hadal ilaaha may isqaawiyay futu u jeediyay naasaha u jeediyay waxay tiri ninkan aniga ima jeedo waxa u malaynayaa saabo waxay tiri wiilkan abo waxa ka hor muuqdo waa nin labadii walaal lagu horgubay oo hortiisa lagu dilay inuu maskaxiyan wali murugaysan yahay waxay ila tahay abo hadaan taxal boqorka waqti kale nooga soo qaado waqtiga noo biiriyo meel aan magaaladan ahayn nagay halka waa meesha waa lagu dilay halka ninkan ilama ah no meesha ninkan ku qaadaan sanid boqorku tago u sheegay waa la isku waafaqay nin lacag la weeyay waa la qaaday magaala kala geeyo waardiye korna waa loo sameeyay guriga jii shaqaale wax loo sameeyay markii halkii la tagay afartan kala weestaa ninku waa basiis wax iska bedelay gabadhu shaqasta ha samayso sharaxa u dheesho ha isgidgidiso ninkaani waa maruu salaad taagan yahay waa maruu quraan akhrisanayo iyo waa maruu waxyaal tocna seexday bas wax kala adduunyo kala shaqo kuma leh gabadhun baa aragtay ninkaani maanta oo dhan ilaahay buu caabudaya bas wax kala ka maqna ilaahay buu caabudaya ilaahay buu ku xiran yahay
wargabadha waxay tiri allay leh waxay ku tiri war ma ku sheegaa hebelow haa warniyow nacajiiba hadda haye warniyow waxaan ka helay oo aan rumaystay diinta aa haysta inay diin sax ah tahay waxaan ka helay saa ilaahay oo caabudaysid sidaa diintaada u dhegan tahay aniguna waxaan doonayaa in aan diinta islaamka qaato kayf ku dhaa wiilkay kayf say macquul ku tahay war haddaaba aniga aabbaha iyo boqorkii i haystaan reer ruum oo saliid ii karkarinayaa oo adiga la iisoo kaadira luleedkaa soo guursoo soo baadiyey aniguna waa kaanka marka labadayna hadii la weydiiyaa ka wadaa may tiri gabadh in lacag la dhalaan hayo anaa qorshe ku haya hayo qorshe haysa muxuu yahay waxay tiri wasa baxsayna marka dhulkii aan ka soo jeeda geynaysa halkaasaan ilagu kaanikaa xiliga waana shahaadada igu qabanaysaa waa musliminaysaa bartaasaan isku guursanaynaa bartaasaan iga ilmo dhalaysaa anigoo gabar islaamad ah diintaada aad baan uga helay yaana war idinku daaline habeenkiiba gabadhii laba far soo diyaarisay intay wax soo musuq maasuqday wax soo xigto waa dumarku rag waa ka caqli badan yihiin waa qatar labadii farsay qaateen markii ayagu habeenkii dhan waa socdaan maalinta markay tahaan xogaa sahay wataan meel la galaan ninkan cibaadadiisa wixiisi biis oo soo baxa oo iska qaataa oo iska dukadaan halkaasay ku dhuuntaan habeenkii kalena way guurayaan adigu ma dhawaa caradu moogta meesha loo socdo habeenkii dambo hadda waa cabsaya moogta nin reer ruum oo dhan baa meesha carada joogo nin boqor ahaa ninkan daba taagano gabadha nin maal qabeen dhalayo aad loo ilaalinaya moogta waa baqaya habeenkii dambe ayagoo guuraynayo labada faras wato ay waxay maqleen qarab shanqar الله اللي هو فرضه رواق فرضه صعدوي فرضه عجيب ويابه الله أكبر وأنا هيعاو أفرت الجهفر داك صوت فريستي لو ساري الله أكبر بقدرة الله الله إله ود بضانا وحا فرسك لو فرسي ugu horreey ka soo degay oo indhaha saa isugu dhifteen oo isleeyay waa labadiisii walaalood boqorka reerkum oo ku riday saliida oo nool war hebelow salaamu calaykum wa calaykum salaam haye isku boodeen say ku dhigtaa dhigi wada maran wuxuu dhahaa malaha noo maahayta waa riyoonaysa say ku dhigtaa markaasoo soo hebel matid haa maryoonaya gabadhii maryoonaya shay waa soo labadii walaal ma tihidiin haa waa annagii baa la yiri ma xasuusta maalintii aan naga dambayso labadeen nagu rida haa marka saas inuu ridiyo markuu jibriil baa saan noo yiri kana daawanaynay jannatu firdaws iyo kadibna jannada dara nalasi wax dhib ah iyo wax problem ma arag hay haddana waxa nala socoto mataqaanaha malaa'ikta rabbi oo dhan baa la socoto malaa'ikta ilaahay baa nala socoto fardaha arkaysa dhawaaqaya halkan iyo arada wax dhawaaqaya arkaysidba malaa'ik baa wata hay Allah subhanahu wa ta'ala ha soo dir malaa'ikta anaga waa soo raaci waxa la yiri qabar cajiib ah leedin haya walaalkiini gabadhii baa tiri waan soo islaamaya gabadhii wiilka isku soo nikaaxiya janna ugu bishaareeya ba saasa u socon bartiyala dabasha malaa'ik baa wardiinaysa reer room iyo reer hebel waxa ka qaban karaan meeshii baa la uxiyay markii baa la qurxiyay gabadhii wiilkii baa la isku nikaaxiyay Allahu akbar Allahu akbar hooshi baa dhameystay waa gabadhii iyo wiilkii oo isku xalaal oo meher xalaal la isku nikaaxiyay salayri معين وجنة عبادة ربي كل ذلك بشارة سعادة كان وضنا نمدي وعلى قطع باريسو يقانو أيا حلي انتهى سئي وقرر ما يستهبين كون الله لحظة فيه ولا لجوي أيا حلي الصباح وحي كتاب هذا الشيء حلي الصباح هاش يا لقيتي وأكي والكي السلام عليكم نمدي سلام عليكم قلبي
وين جست حلقي ضبطنا انت سونولي لسونولي awoodaha ilaahay mucjisooyinkaas way dhaacayeen mugta marka bal ka warrama marka sheekada waxa u soo qaatay war saddex nin baa baarlamaanka madax ka ahayd nin wuxuu ahaa mursal ninna muuday ninna cawad war mursal iyo muuday banaanka iskeeneen war wax fiican bay sameeyeen waa bareereen oo hadal cad bay ka sheegeen difaaca islaamka diinta islaamka iyo sunnada nabiguba way ku dhageen war ma hado soo qabso war ma hado waxana waa mucjise war ka hay ragaaga war ku adeeg diintan wax dhaaba lama hayay gabadha adwaati iska daa warkeeda ku dhag soo istaag mowqifka ay ragaa qaateen qaado wallahi oo billahi talla bishara ku dambaysa ha bishara ayaa ku dambaysa sidaas waxaan xidsanayaa waxa weeye inay la daawataan fiidiyogan culimadu ka hadlaysa موضوع كبد waxa weeye موضوع ku saabsan shalay wixii ka dhacay baarlamaanka oo ku saabsanaa qaanuunka lagu magacaabo qaanuunka galmada ama jinsiga lagu magacaabo marka anaga culimadii ah waxaan ku cadeynaynaa meeshan inaan taageersanahay oo aan bogaadinayno mowqifka raganimada leh oo islaamnimada leh oo guddoonka baarlamaanku istaageen oo ku saabsan in la hor istaago mawaadiicda aan macnaha lahayn oo dadka muslimiinta Soomaaliyeed ee diintooda iyo dhaqankooda ku ahlista inay diideen ayagoo waardiyeynaya aqoonta iyo diinta dhaqanka fiican ayagoo maartaan xilkooda gudanaya marka waa bogaadinayna jazaahumullahu khayran ma leenahay wixii loo magacaabay ama loo xil saaray ayay guteen dhammaan ummadda Soomaaliyeedna inay ku taageeraan baarlamaanka kale waxa weeye waxaan kala runta soo jeedinaynaa in xubnaha baarlamaanka dhamaantood saas oo kale ay noqdaan waxaan kala meeshan ka cadeynaynaa in aan diidanahay ama la yaabanahay mowqifka aan xildhibaanadu ay ku hadashay oo ay tilmaamaysay in shardiga islaamnimada laga tiro qaanuunka asaga oo ku saabsanaa hay-adan filaya agaasimaha shuruuda agaasimaha hay-adda socdaalka inay ahayd baan filayaa oo shardiga islaamnimada in laga saaray soo jeedisay oo amoodid inuu adeegayso ama ay difaacayso dad Soomaali oo gaaloobay oo ay u raadinayso meel ka soo gari lahaayeen ummadda Soomaaliyeed marka waxa leenahay midaasi wax banaan ma aha gabadha dadkii soo doortay waxay u soo doorteen inay danahooda iyo danta islaamka ay maaragtay u matasho in marka magacii ummadda loogu qareemo oo lagu difaaco dad ummadda ka baxay oo diinteeda ka baxay oo ummadda khilaafay runtii shay munaasaba maaha marka waxa leenahay dhamaantiin iyo dhamaanteenba waxaan naloo xil saaray aan gudano dalka iyo diintana aan waardiyeyno haddaad daawateen raggi shalay muuday iyo ninka la yiraahdo mursalna waxay dhaheen waa kar naga daaya waraa ummadda Soomaaliyeed oo mas'uulkii markaasa fata wax iska gelin inta loo keenaysan waryaada waxaas maxay taas wasaqdaas iyo qashinkaas oo waliba aad nolol daba taagantiin waxaas naga daaya ilaahayna ka cabsada muslimiina tihiin qofkii muslimnimada ka baxay oo gaal naqday gaalnimadiisa aado qofkii muslim ana waxaan annaga qabna inuu raaco waay dastuurkan iyo shariicadan islaamka war dastuurkan aan ku dhaqanaa muxuu sheegaa aaway waxaad akhrineysaan dastuurkan muxuu sheegaa muxuu sheegaa ma wax kan ka baxsanaa dadina inta kaamil wala annaga inta iskama fadhin meeshaan dad waaweyn aan carruurna ma nihin mana garan liin waxa wanaagsan waxuna ma garan liin markaas sidii ciyaalka inta meesha istaagta aad waxa loo keenaysa waxaan diinta islaamka ay shuqul ku leeyahay qodobka afraad sidaan u qoray daliila dhageysta qof kasta wuxuu galayaa fil dambiyeed kufsi ah haddii uu horta sharcigan wuxuu dhahayaa qof kasta gabdhaha xitaa fil dambiyeed kufsi ay geli karaan yacni qof kasta wuxuu galayaa fil dambiyeed kufsi ah haddii uu ma rabin inaan akhriyo laakiin waa xishoonaya laakiin waa akhrinaya si ula kaca
si ula kaca u geliyo haba yaraatee wax kasta ee la geliyo daloolka xubinta taranka kooma dhegaysta hadda dhegaysto kooma soomaalidu way ka xishootaa futada kooma ama xubinta taranka ee qof kale xubinta taranka ee qof kale ama adeegsado wax kasta ama xubin ka mid ah jidhka iyo faqradda ba dhegaysta marka faqradda ba wuxuu leeyahay qofka kale uusan ogolayn waxgelinta shuruudda ku xiran waxaa waay inuu ogolaado shuruudda keliya ku xiran inuu ogolaado waay hadduu ogolaado ayadoo halkaasi ay isku haystaan haddii uu ogolaado itmiinis ma aha dembi maaha waxaad fiirisaan marka shareecada islaamka ma ogola waxaan rabaa xildhibaanadda inay si fiican u dhegaysto soo jeestaan rabaa xildhibaan waxaan kuu sheegayaa marka ugu horreysa waddankan waa waddan islaam ah shuruucda la samaynayo waxaa loogu talagalay shacabka soomaaliyeed in lagu dhaqo waddankan diin ayuu leeyahay laakiin nasiib wanaag midaan idiin sheegayaa dastuurkan dadka soo sameeyey khubarada dastuurkan soo qortay hal qodob oo wax walba ka badbaadinaya baarlamaankaay ku soo dareen waxaan waafaqsanayn yacni shareecada islaamka iyo maqaasideeda sharci ma noqon karaan lamana keeni karo baarlamaanka marka kan wuxuu fasaxa u fiirsada wuxuu fasaxayaa zinada wuu fasaxa wuxuu fasaxayaa in dad khaniisina isu tagi karaan uu fasaxayaa wuxuu fasaxayaa because futaduu ka hadlaa futada laga geliyuu ka hadlayaa wax badan waxaan ka xishoonnay wasiiradda wax badan waxaan ka xishoonnay wasiiraddu waxay soo gudbisay inaan laga aqrin meeshaan laakiin duruuftaa kallifaysa inaan aqrino aan caddayno waxaan idiin sheegayaa dad badan waxay mar walba soo celcelinayaan waay sharciga loo keeni waayo waxaan idiin sheegayaa sharcigaasi guddiga hawshaan u xil saaran in badan aan ka wada hadalnay teedi kale hal qodobaan idin caddaynaya sharcigan xukuumadda markay ansixisay xukuumaddii hadda dhacday culammada soomaaliyeed oo dhanaa ka hadashay waxay yidhaahdeen qaarkood dadka sharcigan soo ansixiyey waxay ku sifeeyeen inayn islaam ahayn sidaa daraaddeed waxaa loo saaray ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo guddi asaga madaxa ugu yahay oo culamaauddiinka soomaaliyeed dadka la yaqaano ay ka mid ahaayeen waa laga soo shaqeeyey sharcigii wasiiraddaa loo yeeray waxaa la yidhi waxaan rabnaa sharcigan in la saxo wasiiraddu waxay tiri wixii aan soo qortay keliya ayaa xukuumadda laga ansixinaya wuu ka soo gudbay waxaan fadhiisanay guddiga joogtada sharciga markuu noo soo gudbay waxaan fadhiisanay guddiga joogtada ee baarlamaanka golaha shacabka waxaan tusnay waxaan ku dhahnay qodob dastuuriya ayaa wuxuu dhigayaa in waxaan waafaqsaneen yacni shareecada islaamka iyo maqaasideeda aan sharci noqon karin xukuumaddiina waxaanay soo gudbisay maxaan ka samaynaa guddiga joogtada waxay soo jeediyeen inaan xukuumadda dib loogu celin ee guddoonka baarlamaanka uu qaato in sharcigan la hagaajiyo guddoonka baarlamaanka mas-uuliyaddaasuu qaatay waxaan wacnay culimmadii soomaaliyeed oo aan islahayn shareecada islaamka si fiican ay u yaqaanaan oo weliba ku xeel dheer keliya ma aha shareecada islaamkee qawaaniinta kalena bartay culummo la yaqaano oo magaaladan muqdisho iyo meelo fara badan laga yaqaano culummadii dhowr maalmooda lala fariistay waxaan u yeernay sharci yaqaanadii golaha shacabkaan u yeernay waa la wada fariistay culummadii iyo sharci yaqaanadu way fariisteen waa la saxay dukumenti ay soo diyaariyeen dukumentiga ay soo diyaariyeen ra-iisul wasaaraha waxaan ku nidhi dukumentigan waxaa soo diyaariyey dad la yaqaano oo sharci yaqaanaha iyo culammadii soomaaliyeed
wixii khatarta ah ku jirayna waa laga saaray waxaan rabnaa wasiiradda faraha laga saaro ee ha ku soo darto xukuumadda marlabaadka soo celiso haddana ra'iisul wasaaraha wuxuu yidhi awood uma lihin wasiiradda inay qaadato ay wax ku soo darto idinka laysaayelaysaan yeela waa la soo noqonnay kalfadhiga markuu furmaya haddana waxaan u yeernay guddigii joogtada ee golaha shacabka ee baarlamaanka guddigii haddana su-aalaan weydiinay waxaan ku nidhi dokumentigii culimmadii iyo sharciyaqaanadii golaha shacabka ay soo diyaariyeen xukuumadda markaan u gudbinay xukuumaddii waxay tidhi idinku uun saad ka yeelaysaan ka yeela maxaa tala ah guddigii joogtada ah waxay soo jeediyeen waxay yidhaahdeen sharciga sida xeeroosaadku uu qorayo ama dastuurkuba uu qorayo maadaama aan awood u leenahay golaha shacabka ee baarlamaanka awood uu u leeyahay in uu ka bilowdo sharciga xukuumadda ay soo gudbisay ha la joojiyo waxaa la yidhi ha ka bilowdo sharciga golaha shacabka ha ka bilowdo sharci ayay soo diyaariyeen guddigii loo diray hawshaasi ayagoo haddana kaashanaya sharci yaqaanadii iyo khibraddii hore ee dokumentigii lasoo diyaariyey waxaan rabnaa marka xildhibaanada mid inay ogaadaan waddankan waa waddan islaama shuruucda loo sameeyana dowladdan islaamka ayaa lagu dhaqayaa haddaad wada daawatay waxaan rajaynayaa gabadha abtuga deeqa yaasiin ilaahay u toobad keento diinta islaamka ay si fiican ugu dhaqanto waxa lagu xamanaya hadday run yihiin iska dayso inay u fikirto maalinta weyn ee qiyaamaha inay ogaato waxa weeye ilaahay midka daalimka ah ee ku caasi xitaa wuu isaaqaa xukun buu siiyaa towraduu fariisiyaa ya ilaahay qof kastoo xumaan sameeya wuu wanaajiyaa laakiin yowma laa yanficu maalun walaa banuun ilaa man ata allahi biqalbi saliim maalin baa in sugayso culumada soomaaliyeed waxaan leeyahay war culumo ilaahay ka baq war culumo doorkiina qaata waa halkaanu marayna maanta oo u jeediye anigu waxaan idin leeyahay doorkiina qaata dadka soomaalida waxaan leeyahay war marka nabigeena maxamed nabadna isku atalaacaya war nabigu wuxuu yiri man axyaa sunnati faqad axbari waman axbari kaana maci fi ljanna man axyaa sunnati qofka soo nooleeya sunnadayda faqad axbari anigoo jeclaaday waman axbari qofkii jeclaada kaana wuxuu ahaaday micigayga faljanna jannada war fursadaa haysataa niyahow aan ku warramay ama gabar yahay jacaylka nabigoo la jeclaado waa faa'iido weyn waay war iimaankaaga buuxso war haddaad aragto qof nabiga caayaysa oo ku gafaysa ma cayne nabiga ma cayne qof dulmin haddaad aragto caayaysa adeer kaalinta kuu bannaan ka qaado qof diinta islaamka waxaad gudaartay kaalinta kuu bannaan ka qaado waxaan oo dhan waa iska guranaysaa waxaan arkaysid waa faa'iido weyn waay waxaynu raadinaynaa maanta haddii maanta ilaa forexiska lacag laga faa'iidaya sultaan ku yaacno haddii gabar qabiilkaaga wax laga sheego sultaan maanta oo xanaaqdo haddii siyaasi qabiilkaaga wax laga sheego sultaan xanaaqdo sultaan annaga is cunayno sultaan yaa wareey ka qaxay ka baxay iyo cayda baxaysa la yaab war haddii diinta islaamka lagu gafo adaa rag baa baashaan soo garab jooga weligooda jannooyinka janno ku galo janno shaqaystay war janno shaqaysta janno shaqaysta haddii nabigaaga weeye maxamed ee sharafta badnaa ee qofka u gafta adeer wixii kaala gudbo ka qaado oo ka dhiid laakiin haddii dowcid kuu qabiil wax laga sheegana xanaaqi haddii siyaasad xanaaq ha dagaalami maantooda haddii nabiga korka lagu caayana see waa xaalkaaga war fiiri ilaahay caafimaad buu ku siiyey ubad buu ku siiyey wuu ku irsaaqay waa adigaas iska baashaalaya war waqti yar si ilaahay subxaana wa tacaala inaad dintaada ku difaacdo oo nabiga ku difaacdo oo dadka aad wanaagga ugu sheegto ood xumaanta uga reebto oo waxaas qaado doorkaas qaado war ilaahay haddaad tahay sakraan haddaad tahay sakraan macsiyeystay oo duliyoobay ilaahay weli wuu ku ilaalinayaa xaggaas haddaad joogto ilahay wuu ku ilaalinayaa sababtoo ah waxaa jirta rajada ah inaad qof fiican noqon doonto haddii ilaahay dulinimo kuu qoray waad duloobaysaa
دي إلهي وين كو قرنود ودد وناك فوريسا لكن دال كيد ألا لقى ربا قبل دايزة أبتقى تغياسي وحن ليه قدام بين هدي إلهي هنون كو قري إلهي كسو هدي هدي إلهي هنون كو قري إلهي سبحانه وتعالى كسو هديو دينتين نور كبدن الله كسو هديو إيمانك الله كسو انت دينتين الإسلام كشريعة الإسلام كوقفتي أما تكهليسي إن كبدن قبل قوة الله كاديو حدوسي إلهي هنون كو قري أو إلهي ودقدن يدل لمدرس متقانا أتكسو أتوكو قرنا ومدى الله كاقبتو تيغابانا ومدى الله كاقبتا كله دار على سعودية هاي نويشة كده مرحبا عياسيسو انت البرنامج كانوا كلامي ده كل مدونو نبتقلي